maxaan ku raraa munaasabadaha dalka ugu waaweyn ee madaxweynuhu ay tahay inuu ummadiisa uga warramo waxa jira dhan walba iyo waxa soo socdaba inuu ka warramo ay ahayd khudbadda madaxweynaha barwaaqo badan buu ka sheekeeyey barwaaqada ummadda dee ka markhaati furaya halkay gaadhayna iyadaa sheegi halka ka qatanna iyadaa sheegi kolle annagu degaan aan ka soo jeedo wakiil ka ahay halkan uga ahay 160 ceeloo dawladdii hore kulmiye qoday iyo imaka tiro badan oo uu sheegay oo sanadkan intaanu labada sanadood joogay la qoday kuwa iyo ku ka horreeyayna deegaanka ka soo jeeda ceel qura kuma leh ma jiro tuulo deegaan aan wakiil ka ahay ah oo ceel dheer lagaga cabaa oo riigihi ma jiro ilaa maanta 300 oo ceel baana dalka loo tirinaya cadaalad darro horta halkaas laga joogaayo haddii gobolada qaar dhergeen waxaan ognay qaaran ka ban oo inta maamulka kulmiye jooga aan MCH loo dhisin oo iskuul loo dhisin oo ceel loo dhisin baanu ka warhaynaa ognahay cadaalad darradaan waxaan leenahay waa in la saxaa wax laga qabtaa oo dadku xuquuqdooda helaan taa haddaan intaa kaga baxo qodobka ugu weyn laba qodob un baan halkan ka soo qaadaya oo ah qodobna qodobka uu madaxweynuhu yiri waxaan ku dhawaaqayaa aanu hirgelin doonaa maxaan ku raahdaa furistii xisbiyada ururada midna uu yahay arrimaha maanta laga sheekeynayo ee dalku inta badan ma garanaysa ummaddu ay ka hadlaysay aan ku horeeyo taa furista ururada xilli bay lahayd xilligeedii wali 2 sano ka dhiman haddii la soo dedejinayo taas waa soo dhaweynaynaa oo wax alla waxaanu baqa ah oo xisbi ahaan haddaanu wadaninahay ka qabnaa ma jirto haddii la qabanayo urur la furayo tartamaanu diyaarnay ma nihin urur maanta la diiwaan gelinayo xisbi dhisan baanu nahay annagoo sidaa u abaanu ku gelaynaa bari mayna diiwaan gelin waxaase meesha taalla madaxweynaha 2 sanadood doorasho qaban kari waayay furista ururadu doorasho ku yimaadaan guddida diiwaangelintu way soo diiwaan gelisaa dabadda golayaasha deegaanka lala qabtaa doorasho dhacda xildhibaanada la doortaa cod baa lagu kala helaa xisbi waliba urur waliba wuxuu urursadaa codku dalka ka helay kaasaa saddexda ugu bataa ay u gudbaan xisbiyo yaa u qabanaya 2 sanadood buu commission dhisi kari waayay 2 sanadood buu doorasho sii day kari waayay ururaan waa habartii tiri xaabada intii la kici kari weyda tiri tu kale igu soo dar 2 doorasho is saaran baa sugaya diiwaangelin urur oo boqolaalan ku daraya taasi waxay tahay uu islaantii tiri xaabada la kici kari weyda igu soo dar qaar kale waanu soo dhaweynaynaa 5 doorasho ma ahayd 7 doorasho haddii mar la wada qabanayo waa soo dhaweynaynaa dalkaba waa ku dhib in sanad walba doorasho la yiraahdo tan waa tan sanad walba in la yiraahdo doorasho kala ah in sida caalamku ay u qabtaan oo diiwaangelin wanaagsan la sameeyo oo doorashada hadday doonto wiig socoto oo ninkii wiigii hore codeeyay aanu mar labaad ku soo noqon karin qalabku calaamadiyo sida caalamka u tahay ilaa inta dadku codkooda wada dhiibanayaan dabeedna sidaa wiig loogaga baxo doorashada oo dhan oo sidaa la isu saaro hadday wiig qaadanaysa hadday ka yaraanaysaba waa soo dhaweynaynaa dhiigbax bay ku tahay dalka in sanadkana tana la qabanaya todobana tana la qabanaya 5 doorasho ama ka badan oo istaba yaallo inaan marna oranayna halaysa saaro dib la isugu riixo marna oranayna ma qabsoomayaan hala kala qaado dhiigbax bay dadka ku tahay dadku xuquuqdooda helbay waa soo dhaweynaynaa taa in xal loo helo in mar la wada qabto ta ururada ta baarlamaanka ta golayaasha deegaanka haddii la doono madaxweynahana lagu soo daro tu walba lagu soo daro waa soo dhaweynaynaa isweydiintiisa waxay tahay yaa 2 sanadood ee madaxweynuhu uu eedda saaray xisbiyada mucaaradka ah waxaan qabaa isaga leh commissionkii hore wuxuu ahaa garsoor doorasho qabtay waa laga cawday xeerka baneeyay oo xuquuqda ururada siiyay cidii tirsata halka inay ma garanaysa xaq ku seegay ama ma garanaysa laga gacan togaaleeyay cidii tirsata ama ha hesho ama yey helin ama ha u xaqiiqowdo ama yey xaqiiqoobin xeerkaas iyo wada loo maro xeerkaas waa maxay qodobka 12aad ee xeerka maxaan ku raal number 20 ee 2001 wuxuu tilmaamayaa in marka sidaas oo kale eedayn u timaado ee commissionka la eedeeyo
madaxweynuhu inuu u xil saaro guddi madax bannaan oo arrintaas u xaqiiqsa oo wixii ay la yimaadaan ku go'aan qaato komishanka waxa loogu eedeynayay inay isaga u eexdeen xisbi kalena ku shifsadeen madaxweynuhu 2 sanadood buu difaacay uu lahaa waxa afka ingiriisiga lagu yiraahdo obstruction of justice cadaalad la isor taagay cadaalad buu isor taagay madaxweynuhu 2 sanadood oo komishanka waxa lagu eedeeyay sugu waayay inay guddi intuu u xil saaro ama ha lagu helaa ama ha lagu waayay bil ama labay ku dhamaan layde uu mari waayo wadadeedii isaga ayaa isku og wax isaga ayaa isku og wuxuu ku qarinayo isaga ayaa isku og wuxuu ku difaacayo ee uu cadaaladda in la mariyo ugu diidayo عسي عدانا وحا ويراهدين حسبغا iyo isaguba hadaan gudida xul saarno doorashadii baa madmadow galaya oo xaraan noqonaysa haday xaraan tahay inay xaraan noqoto soo ma ahayn soo in laga gun gaaro ma ahayn haday xalaal u noqoto soo in xalaal cadaan u noqoto ma ahayn muxuu isu hortaagay in gudida baadha arrimihii laga cawday ee tirsana arrinkaas halka ka dhacay kaasa halka ka dhacay kaasa sida ka dhacay cadaynta annaga nalagu lahaa marka gudida noo timaado cadaynteeda annaga lahayn hadaan cadayn weynada wax ma jiraan bay soo qori laayeen waxa uu madaxweynuhu uga baqay waa wax jirade oo 2 sano hortaagnaa labadaas sanadood baa markaa madaxweynuhu uu ku lumiyay komishankii hore magacaabistiisa iyo doorasho ku lumiyay waxa timid markii beesha caalamkuna soo dhax gashay ee arrinka meel la dhigay ee maxaan ku raahdaa xisbiyada gardarabaha ku ahaatee la marsiiyay arrin lagu dhaxdhaxaadiyo oo komishankiina labaha lagu daro baarlamaanka hal la mariyo sidaa dabadna komishanku ma garanaysaa in cusub haynagu abuurmo kanina xilkiisa ha dhamaada ka kalna isagoo 9 hal la magacaabo yaa dilay waa la wada saxay in arrinka la fuliyay yaa dilay miyaanu madaxweynaha xisbigiisa ahayn kii halka ku dilay yiri mooshinkaasi gaari ma maayo golaha wakiilada taas baa xisbiyadu liqeen haddana waa laga soo gudbay kii cusbaan magacawna baa la yiri nin anigoo kala oo xisbiyahan oo iga dardar fiican iga dardar adag markuu soo magacaabay yaa muranka dib u geliyay komishankii laga cabanayay cid ka soo celiyay madaxweynuhu maalinba hadduu dhufo sino gelayo oo marka mid laga gudbaba uu mid kala gelayo nasiib darro weyn weeyaan oo dalkani cadowna iska eegi kari maayo korna eegi kari maayo riciidaha iyo gomada aanu saysanna buu madaxweynuhu ku shaqeeyaa innagu waanaanu isku mashquul waxaan qabaa taasina waa taasoo hadday ciideeda leedahay komishanka hore labadiisa sanadoodna isaga ku eedeeda leh ninka wixiisa qarsanaya baarista diidayna isagu ahaa komishanka dambana dadka inay ugu shubaan doonaya ee xisbiyahanka iyo shaqaalaha iyo waxaan xeerku ogolaan soo xushay waa isaga muranka laga ma garanaysaa in ummadii ka garnaqday go'aankay keentayna cidda ilaa imika diidani waa madaxweynaha beesha caalamku u ballan qaaday safiirkii ingiriisku u ballan qaaday inuu 2 wiil ku dhamaynayo ilaa bisha dhamaadkeeda ku dhamaynayo safiirkii daanishku u ballan qaaday inuu 2 wiil ku dhamaynayo safiirkii iyadu u magacaabay iyadoo sabti la joogay inuu ilaa 4 ku dhamaynayo wixiiba la soo dhaaf intiiba laga yimid yaa waqtiga lumiyay waxaan qabataa eedeedana waxa le madaxweynaha ummadda ma dhex taal waxaan kaga baxaya arrinka la hadal hayo ummaddu aad u hadal haysay waa ku mahadinaya madaxweynaha haddii uu yidhi arrinkaasi ma iman karo waa mowqifkaanu ka qaadanay qarannimada in la ilaaliya oo maanta aanay taagnayn farmaajo inuu isagoo ay u tahay maamul goboleed u tahay Soomaaliland isna uu madaxweyne yahay inuu halkaa ka soo dego inaanay wax meesha qabta ahayn waa aaminsanahay qarannimadeena inuu waxyaalo ku tahay waa qarsanahay laakiin waxa weeye madaxweynuhu arrinku hadal haynta ku sheegay hadal hayn ma hayna si dhab ah loogu yeeray si dhab ah wax loogu sheegay markuu soo noqdayna si dhab ah looga daba yimid si dhab ah buu warqad ugu qoro la isu weydaarsaday hadal hayn ma hayna wax lala soo galay baahayd wuxuu imaka ummadda dareenkeeda markuu arka kaga noqdo baahayd waa buu wanaagsan yahay hadduu ummadda dareenkeeda qaato oo maqlay waa buu fiican yahay baan leeyahay laakiin marka hore wuxuu xambaarsanaa oo 2 maalmood warqad qoro lagu baryaayay oo dirqi warqadda lagaga dhaliyay oo transit lagu sii dhigay Addis Ababa iyo safaaradda lagu dhigay ayay ku timid taas iyo dagaal baa loo galay tuu maanta isagu taalay mid ma hayne waad se ku mahadsantahay hadda dareenka ummadda raacday inaasan ka baxayo salaamu calaykum warahmatullahi